maayirka degmada Burco Maxamed Yuusuf Muraad oo ka hadlayay daafurka barnaamijka wuxuu qabsaa isla markaasina lagu iftiiminayay jidadka kala duwan ee magaalada Burco ay fikradiisa keeneen dhalinyaro mutadawiciin ayaa waxa uu maayirku Digniin Adag u diray dad iyagu ku soo jeeda wadada halbowlaha ee magaalada Burco iyo sidoo kale ganacsatada gaadiidka xumaaday dhiga wadada hareerheeda iyo dadka qashinka dhiga intaba maayirka ayaa tilmaamay in talaabada ka qaadi doonaan isla markaasina ay gabi ahaanba banayn doonaan sanduuqadaha wadada hareeraheeda laga dhiso maayirka oo ka hadlaya arintaasi waxa uu yiri mashruucan waa mashruuc iska wuxuu qorshaha bilaabmay saasaan wadeen waxaan digniin siinayna laamiga wadnaha magaalada ku wareega dadka inta baabuurta dhigaan iskaga tagay ama geerishada ka dhigtay iyo sanduuqadaha yaryar ee magaalada laga sameeyo ka qaadi doona sanduuqad kaga tagmayno magaalada gudaheeda kaga tagmayno waxa isagoona mashaakil magaalooyinka Soomaaliya xagga qashinka waa magaalooyinka dawladda hoose ay qashin ka qaado 1 iyo 2 iyo 3 Soomaaliland qashinka shilin laga qaadi maayo gaarigaas la sugbaa lagu leeyahay oo saar in badan waa ka hadal waxaan arkaysaa dad habeenkii qashinka marka la seexdo laamiyada soo dhigay waxaan leenahay taana hal laga digtoonaado agaasimayaasha shaqadaas leh waxay u shaqeyn doonaan si dardargelin marka la isku soo duuduubo waxaan nahay reer Burco oo iskaashanaya oo garbaha haysta oo mashruuc walba ka wada shaqeynaya وخالد بكيلة wararka fogaan araga xorta Star TV Burco.